waan idin salaamay akhyaar sharafta leh ee ku xidhan janaalka runta u kaalay waa Bashiir Muuse iyo casharadii aad uga barateen janaalka runta u kaalay waxaynu ku jirayba maalmahan kitaabka Bible-ka ah iyo sidii uu dambigu ku yimid waxaynu soo maray cashirkii hore aynu soo maray aadam iyo xawo oo jannada laga eriyay oo jannadii hal dambi ku waayay waxaynu soo maray oo kale cutubka saddexaad aan ku soo maray inuu Ilaahay soo farageliyay ceebtoodii iyo magaranaysa cawradoodiiba asturay marka kitaabka Bible-ka ah markasta oo Ilaahay iyo dadku ay xiriiraan waxaa dhacayay in qurbaan la sameeyo waxaa dhacayay in magaranaysa dhiig la daadiyo marka kitaabka Bible-ka ah waxaa aasaas u ah oo dambi dhaafka iyo magaranaysa xiriir Ilaahay lagula yeeshaa in dhiig la daadiyo oo qurbaan la sameeyo magaranaysa oo neef lagu duceeyo oo neef xoolo ah ma garanaysaa la sadaqeeyo Ilaahay loogu dhawaado marka xoolaha sadaqada ama neefka ama xoolaha qurbaanka ah ayaa ah laf dhabarka ma garanaysaa u aha xiriirka Ilaahay iyo dadka markasta dhexmara markasta oo ma garanaysaa Ilaahay uu dadkiisa soo booqdo waxaa dhacaysay in alla bari la sameeyo oo neef xoolo ah la qalo oo dhiiggiisa ma garanaysaa Ilaahay loogu dhawaado marka sunnadaasi ama habkaasi wuxuu ka soo bilowday nabi aadan iyo xaawo waxaynu arkaynaa inuu Ilaahay neef qalay oo haragiisii uu magaranaysaa dhar uga sameeyay marka Ilaahay ayaa sunnadaa jideeyay kadibna bal waxaan arkaynaa magaranaysaa wiilashii aadam iyaguna qurbaan sameeyay oo neefka waxaan arkaynaa isaguna iyagoo neef qalay bal aynu akhrino kitaabka bilowgii cutubka afraad bal aynu akhrino oo ilma aadan aynu bal akhrino iyo wixii dhacay وعاشر آدم زوجته حواء فحبلت وولدت قابيل وقالت بمعونة الله اقتنيت رجلا وبعد ذلك ولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعي الغنم أما قابيل فكان يعمل في فلاحة الأرض وفي وقت ما قدم هابيل لله قربانا من ثمار الأرض أما هابيل فقدم أفضل أبكار غنمه فرضي الله عن هابيل وقربانه marka waxay leedahay aayadahani waa aayada kitaabka bilowgii cutubka afraad aayada koobaad ilaa aayada afraad baynu akhrinaysaa wala soo marka waxay leedahay aadam xaaskiisii ayuu u galmooday oo la seexday xaawa markaasay uureysatay marka wiil bay dhashay oo waxay u bixisay qaabiil oo waxay tiri ilaahay baa caawimaada eebe ayaan ku helay wiilkan ayay tiri iqtanaytu rajulan wiil baan dhalay oo nin baan helay bay tiri marka kadibna waxay dhashay walaalkii haabiil marka haabiil iyo qaabiil way isku xigeen marka way koreen wiilashii dabcan koritaanka kitaabku kama sheekaynin iyagoo koray oo rag waaweyn noqday ayaa inoogu xigta marka waxay leedahay aayaddu wakaana haabiil raaci alghanam haabiil ari jire ayuu ahaa oo arigu dhaqan jiray ama أخاه قابيل فكان يعمل في فلاحة الأرض قابيلنا وحوها نين بيرلي أو دولك فشل أو بيرلي أيوه بير أيوه لها مركا والد دعيستي وقرنايسا والد على بريه لبدي نبوي دعي سميين ساسا قرن مركا اللي دعيستي محاد عيبل وحيد عيان يجنو وحيد عيبلان يجنو وفي وقت ما حلية كمدة قدم هابيل لله قربانا من ثمار الأرض ninkii la oran jiray qaabiil midhihii beertiisa ayuu soo guray oo magaranaysaa Ilaahay u sadaqeeyay oo sadaqa ka bixiyay soo ururiyay ama haabiil faqadama afdal abkaar qanami laakiin walaalka haabiil arigiisa neefafkii ugu shilshishlaa ayuu Ilaahay qurbaan u bixiyay marka haabiil qurbaan buu bixiyay oo xoolo ayuu qalay faradiyallahu an haabiil wa qurbaanihi Ilaahay wuxuu raali ka noqday oo uu aqbalay qurbaankii haabiil waana la aqbalay oo raali baa laga noqday maxaa marka dhacay meesha xooluu qalay oo dhiig buu daadiyey marka waxa weeyaan in neef xoolo ah la qalo oo kafaara la helo waxay asaas u tahay in dambiiluhu noolaado waayo waxaan soo maray markii bilowga aan soo maray kitaabka labaad ee kitaabka bilowgii inuu Ilaahay aadam iyo xaawo ku yiri geedka jannada dhexdeeda ku yaala ha cunina maalinta aad cuntaan hubaal waad dhiman doontaan marka waxa weeyaan dhimasho ayaa ka dhalata dambiga marka waxa weeyaan qof kasta oo dambiil ah waxa ku waajibtay dhimasho
marka hadduu ilaahay dambiilaha laayo dambiile kasta la dilo ilaahay wuxuu noqonayaa garanaysaa mid aan naxariis lahayn qaar markaasuu ilaahay wuxuu keenay kafaaro ilaahay isagaa wax walba ugu awoodaay dambiilihii in la furto oo neef xoola ah meeshii dambiilaha lagu dili lahaa oo dhiiggiisa lagu daadin lahaa in neef xoola ah meeshii dhiiggiisa lagu daadiyo neef xoola oo waxba galabsanin xooluhu dambi ma laha waa bahaa'im waxba dambi ma laha marka meeshii dambiilaha in dhiig neef xoola ah waxba galabsanin oo beri ah lagu daadiyo dambiilihiina la fursad labaad iyo fursad saddexaad iyo fursad afraad la siiyo qurbaanku halkaasuu marka ka yimid marka waxa weeye waa qofkii baa la furanayaa adiga ayaa laga furanayaa qaantii iyo deyntii lagu lahaa ee dambiga iyo dhimashada marka halkaasuu ka yimid marka waxa weeyaan ilaahay wuxuu aqbalay qurbaankii haabiil sababta dhiig baa la daadiyey ninkana wuxuu keenay dhiig buu daadiyey arigiisii neefafkii ugu shishishla ayuu bixiyey kana xoogaa midhaa ayuu keenay marka kii midhaha keenay qaabiil ilaahay saa uma eegin marka qaabiil baa xanaaqay oo cadhooday wuu hinaasay walaalkii buu dilay meeshaasaa dembigu ka dhashay yaa gudashada marka waa qiso kale oo hadda aynan waqti u haynin marka waad arkaysaa ilaahay wuxuu aqbalay oo raalli ka noqday qurbaankii haabiil maxaa yeelay dhiig ayuu daadiyey oo xoola ayaa la qalay bal xaggaa iyo nebi nuux aan aadno nuux ayaa inoogu xigta yaa maxaa dhacay markaa nebi nuuxna qisadiisi maxaa dhacay waa kitaabka bilowgii cutubka 8aad aayadda 18 ilaa 20 ayaan akhriyayaa waa bilowgii cutubka 8aad 18 waxay leedahay sida فخرج نوح وأبناءه وزوجته وزوجات أبنائه من السفينة وخرج من السفينة كل حيوان وكل ساحف وكل طير وكل ما يتحرك على الأرض وكل حسب جنسه وأخذ من جميع أنواع الحيوانات الطاهرة ثم بنى نوح مذبحا لله والطيور الطاهرة مذبحا لله وقدمها قرابين على المذبح marka muxuu sameeyay nabi nuux markii waa qisadii nabi nuux waa qisad dheer cutubka 8aad oo dhanba ka sheekeeyay marka duufaantii baa dhacday dadkiisii waa la halaagay dadkii marka waxa weeyeen qoyskiisii ayaa ka badbaaday marka nuux iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii ayaa ka badbaaday marka xayawaankii iyo xoolihii iyo duurjoogtii iyo shimbirihii iyo wax alaale wixii dhulka ku noolaa laba ka qaad baa lagu yiri lab iyo dhadig marka waxa weeyaan muddo bilaa ayay badda ku jiraan oo dhulka biyaha ka buuxsamay marka biyihii markay dhulkii uu noqday uu soo baxay oo berrigii soo baxay biyihii ay gureen oo buurihii soo baxeen oo dhul qalalan soo baxay oo duufaankii iyo hurricane-ku baaba'ay ayuu meel alla bari ah ilaahay u sameeyey banaa madbaxan lilaahi madbax ayuu ilaahay u sameeyey madbax waxa weyn meesha xoolaha qurbaanka ay ducada ilaahay lagu bixiyo وأخذ وحيري وحو قاضي وأخذ من جميع أنواع الحيوانات الطاهرة وقدمها قرابين على المذبح وحو قاضي حيوان كي طاهر كها حلاشها هي شمبري حلاشها انتو قاضي أيو مذبحي قربان بحي وهالكا ديقودي كدادي وهالكا إلهي ودوادي مركب حداك الساعة قاب كي دم دافك اللي وهي لجري دعاء اللي وهي لجري bel lagu raali gelin jiray in ay ahayd qurbaan iyo xoolo la qalo iyo dhiig la daadiyo marka waxa weeyaan saa ula soco nabi nuuxna sidaa ayuu sameeyey marka xagga iyo nabi ibraahim aynu aadno xagga iyo nabi ibraahim bal aynu aadno cutubka 15aad wali kitaabka bilowgii baynu ku jiraa waa bilowgii cutubka 15aad nabi ibraahim iyo ballankii ilaahay la dhigtay ay leedahay ayadu waxay leedahay sida ilaahay marka nabi ibraahim ayuu la hadlay ووحي بعد هذه الأمور صار كلام ربي إلى أبراهام في الرؤيا يا فقال أبراهام فقال وحي إلهي فقال كثيرا جدا أكثر أجرك كثير على يبود هل كان يقول عليو وبعد هذه الأمور صار كلام ربي إلى أبراهام في الرؤيا فقال أبراهام أجرك كثير جدا يا أبراهام أنا ترس لا تخف يا مركا وحول إبي نبي إبراهيم الله وحول نبي إبراهيم أبا الجود كأجو آد بوين هاي أنا قاعد ياكو ترس كعشان أنا قاعد كوه
cabsanin. marka wuxuu yidhi maxaad isiinaysaa buu yidhi faqaala abraham ayuha sayidu rab maada tucطinii wa ana maadin caqiiman maxaa ii taraysaa buu yidhi ebo yani u calacalay hadiyadaada iyo waxaan fiicanaad isiinayso maxay ii taraysaa buu wa ana maadin caqiiman aniga oo ma dhalaysa ayaama dhimanayaayoon qabriga gelayaaye waxaad isiiso maxay ii qabanaysaa maxaan ku falayaa buu yidhi hadiyadaada iyo waxaanaad isiinayso iyo deeqdaadu ma dhalays baaban ahaye maxay ii qabanaysaa buu yidhi markaasaa ilaahay ku yidhi faqaala ilaahay wuxuu ku yidhi maya ma dhalays ma noqonaysid ma dhalays ma noqonaysid laa yadurtuka wuxuu yidhi ninka nabi ibraahim hadalkiigu sii watay wuxuu yidhi ana maadin caqiiman inaka lam tucطinii nasla caruur maada isiinin oo ma dhalays baan ahay oo keli baan ahay aniga islaantayda baa is ag fadhinaa maxay ii taraysaa waxaanaad isiiso huwa alcaazar dimashqiy yarithuni buu yidhi addoonkayga alcaazar dimashqi la yidhaha waa madaxa shaqaalihiisa barigaa addoon baa shaqaalaha addoon baa la odhan jiray laakiin hadda addoon lama yidhaha waxa weeyaan waa servant shaqaalihiisa ninka madaxda u ahaa nin hanti badan buu ahaa nabi ibraahim hanti badan baa ilaahay siiyey hodan buu ahaa geel iyo ari iyo loba uu ka dharagsanaa iyo dameero iyo shaqaale marka wuxuu yidhi wakaa ninka madaxa shaqaalahayga ayaa dhexlaye anigu waxba caruura melihiye barakadaadi barakadaysaa maxay ii qabanaysaa buu yidhi faidaa kalaamu rabbi ilayhi qaa'ilan laa yarithuka alcaazar dimashqiy alcaazar kuma dhexlayo buu ilaahay ku yidhi alcaazar kuma dhexlayo wiilka adigu aad dhasho ayaa ku dhexli doona bal alladii yakhruju min axshaa'ika yarithuka ka dhabarkaaga ka soo baxa waa isxaaqe ka ayaa ku dhexli doona caruurtaada iyo tarankaaguna sida xidigaha cirka ayay u tira badnaan doonaan انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت samada dibad banaanka u soo baxo tiri buu ilaahay ku yiri xidigaha cirka ma tirin kartaa bal isku day inaad tiriso lama tirin karo xidigaha cirka sidaasuu noqon doonaa buu ilaahay ku yiri farcankaagu markaasuu qurbaan u bixiyey wuxuu qaaday marka neef lo ah iyo magaranaysaa xoolo ayuu qaaday nabi ibraahim xoolo ayuu qaalay bal xooluhu qalay aan eegno aan fiirinayso ثم أخرجه إلى خارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها وقال له هكذا يكون نسلك سيدا سيهاني ساوي حدقا عيرك ما ترين كرتا لما ترين كرو فرعا كاغو سيدا حدقا عيرك أي أتر بدنون دونا بيل على عازرنكم مرد حل دون ها ساسو إلهي كيري فآمن بالرب فحسبه له برا مركاسو إلهي رمي أو إلهي هرتيسا إلهي بارال كان نقض النبي إبراهيم مركا محو سمي وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها فقال أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها أنا أيا دولك كاسو كحية دولك كلدانيين أنا كاسو كحية دولك أنا يانكم كان عام ويان ودولك ما أنت إسرائيلي فلسطين اللي يسكنهم اللي يسكن هايستو يعني dhulkaasaa la keenay dhulkan ayaad dhexli doontaa buu yidhi ilaahay ku yidhi markaasuu nabi ibraahim baa yidhi maxaan ku ogaan doonaa inaan dhulkan dhexlayo maada aclamu anni arihuhaa wax caddayna ma ii haysaa oo ii muujinaya inuu warkaagu sax yahay wey maxaan kugu aaminaa caddayn ma ii haysaa yuu ilaahay weydiiyey waa nabi ibraahim faqaala lahu ilaahay ayaa la hadlay oo wuxuu ku yidhi faqaala lahu khud lii cijlatan thulaathiya وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة فخذ هذه كلها وشقها من الوسط واجعل شق كل واحد مقابل صاحبه أما الطير فلا يشقه فلم يشقه مركا إلهي وحكي واحد كنتا دي بسدح جرأة إيو ري سدح جرأة إيو ون سدح جرأة إيو مقرنا يسا iyo shimbir qooley ah oo xamaama wayamaama waxamaama shimbir qooley iyo shimbirta yamaamada la wato qooleyda ka yar weyn marka intaad gowracdo oo dhexda ka dilaaciso dhexda ka kala jeexdo qaybna xaggan iska dhig qaybna xaggan iska dhig buu iska soo horjeediyo marka
sidaas yuu sameeyey marka habeenkii oo dhan buu ka celinayay garanaysaa hadda maalinta oo dhan buu hadda ka hor joogay hadda ayuu ka hor joogay marka waxay leedahay ولما سارت الشمس إلى المغيب وقع على أبراهام صبات وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقع عليه فقال لأبراهام مركو قبل كده عي ما نترسو هذا وقعلني مركو قبل كده عي أيو جمعي هردوين باكو عليه مركاسا وحا يمد سيد الجريرو كله أنكد يهلاع يقدر أيا يمد مركاسو إلهي لها الله نبي إبراهيم يعني إلهي بقى صادح قلي ظروف تاس تشوي إهن عادي جاهين مقد ينكد يهلع يا صادح قلي ماشي مركاسو إلهي عدكي ربك أيوم مقلي فقال وحكوجر إلهي لأبراهام اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة أما أنت فتمضي إلى آبائك بالسلام وتدفن بالشيبة الصالحة مركا إلهي بالله هذا وحكو يري واحد وقاتا دولكن إنان أديقان كسين دونا dadkaaguna waxay ku noqon doonaan socoto wadan aan kooda ahayn ajnabi bay ku noqon doonaan waa masare waana la adoonsan doonaa ummadda adoonsantana aniga xukumi doona oo waan ciqaabi doonaa adiguna waxaad ku dhiman doontaa cimri dheer ya wa anta tadhhabu wa tudfanu bishayba saaliha cimri dheer oo wanaagsan iyo cibaado suuban ayaad rabbiga ugu dhawaan doontaa marka waxaan isku soo wada duuduubo waxa weeyaan waxaad meesha ka arkaysaa ilaahay iyo nabi ibraahim markii ay xiriir kala haayeen oo ilaahay nabi ibraahim u waxyooday oo ilaahay nabi ibraahim u yimid qurbaan baa meeshii yaalay dhiig baa meeshii ku daatay خذ لي عجلة ثلاثية وعنسة ثلاثية وكبشا ثلاثيا بإلهي كوي كان دي بس تحجرة وأرجع ستحجرة وين ستحجرة وهالك هرتي كو جورع مركب عوين ديق للتعديو وحاهد قابك إلهي لقول حريرة أو communication لقول سمايو ما هين وحوجا ميل اللي وجت سدا أما ميل أما جير للسبكة أما وحوجا عنتا أما وحوجا مرع ميل لديه إلهي وحلو لو أنشر كتابك بايبل كا أو سنة إلهي كذي أهيد إن حول قربان الله بحيو قربان إلهي الله بحيو يا قربان كالله بحيو ما أنت مركز حج عرفه مركز لجارو هدية جرته حج حول الله قلايو وحلا بحيو قربان هل كوا سنة النبي سنة إبراهيم بلينها وسنة النبي إبراهيم وهي قربان كالله بحيو إن في حول الله قالوا ديك إلهي اللي قدوا هذا وقربان كتابي وكتابك بايبل كوقبو وسنة النبي إبراهيم لجسوا جاري وهي مركز 10 كوسيس عندنا إلى الصعود فضلا إلى الصعود أدبن إذن سلام يا